sideedan shay marnaba ha ka qarin dhakhtarkaaga. Waxaa laga yaabaa in xaaladaada caafimaad ay saameeyaan ama dhibaatooyin hor leh aad ka dhaxsho daawooyinka iyo talooyinka uu ku sii doono dhakhtarka haddii aad ka qariso sideedan qodob. Haddaba intaan u gudagelin waxaan si gaar ah kaga codsanahay in aad muuqaalka share gareyso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xiran si ay ugu faa'iidaystaan. Sidoo kale muuqaalka like saar, page-kan follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo. Mahadsan. Adigaan i daawanayo aan su'aal ku weydiiyey, dhakhtarkaaga been ma u sheegtay hadda ka hor ama ma ka qarisay qaar ka mid ah xaaladaha caafimaad? Haddii ay arrintan jirto, xagga hoose commentiga waa nooga soo qori kartaa waxyaabaha aad ka qarisay dhakhtarkaaga ama beenta aad u sheegtay. Waa muhiim su'aal walba ay ku weydiiyaan dhakhaatiirta oo la xiriirta xaaladaada caafimaad in aad si saxan uga jawaabto. Waayo haddii dhakhtarkaagu uusan garanaynin xaqiiqooyinkaaga, way adag tahay in uu ku siiyo daryeelka ugu fiican ee caafimaad oo adiga aad u baahan tahay. Qodobka ugu horeeyo, marnaba ha ka qarin dhakhtarkaaga daawooyinka aad qaadatid. Waxaa laga yaabaa inaad qaadato daawooyin kale oo ay dhakhaatiir kale kuu soo qoreen ama adiga qudhaada aad ka soo iibsatay farmasiga. Fadlan haddii uu dhakhtarkaaga ku weydiiyo nooca daawooyinka aad qaadato, waxaa wanaagsan in aad si saxan uga sheegto. Guud ahaan daawooyinka, haddii ay ahaan lahaayeen daawooyinka fitamiinada ama daawo dhaqameedka, waxaa wanaagsan in aad dhakhtarkaaga u sheegtid. Maxaa yeelay haddii aad ka qariso, waxaa laga yaabaa in daawooyinka uu kuu qorayo dhakhtarka iyo daawooyinka aad qaadatid oo aad ka qarisay aan dhakhtarku u sheegin inay isdiidayaan ama way isqaadanaynin, ay interaction ay sameynayaan oo ay taas ay ka dhalato dhibaatooyin caafimaad oo hor leh ama xaaladaada caafimaad ay kaga sii daraan. Mar walba dhakhtarka aad u sheegto daawooyinka aad hore u qaadatid, wuxuu kuu qorayaa daawooyin aanan daawada aad qaadato aanan isdiidaynin, ama wuxuu ku leeyahay jooji daawadaas oo mid u dhigmato ayuu kuu qorayaa oo daawooyinka isqaadanaya. Fadlan ha ka qarin dhakhtarkaaga daawooyinka aad qaadato. Qodobka labaad, marnaba dhakhtarkaaga ha ka qarin haddii aad isticmaasho muqaadaraadka sida shiishada, sigaarka, qaadka iyo khamriga. Haddii uu su'aashaas ku weydiiyo, waxaa wanaagsan inaad si saxan uga jawaabto. Maxaa yeelay waxaa laga yaabaa dhakhtarka in uu kuga arkay calaamado oo cuduradaas uu kuga arkay calaamadihiisa in ay u daran yihiin waxyaabaha muqaadaraadka isticmaashay. Haddii aad u sheegtid aad la wadaagtid, wuxuu ku leeyahay iska jooji waxaas. Maxaa yeelay waxay kuu keenayaan ama xaaladahaaga caafimaad way kaaga sii darayaan. Balse dhakhtarkii haddii uusan ogeyn, baaritaano badan buu kuu diraya. Ilaa dhakhtarku ma garan karo waxa kugu kicinaya ama xaaladaada caafimaad maalin kasii dambeys ee kaga sii darayso. Adigani waxaa la dhuumanaysaa ama aad ka qarisay inaad isticmaashid muqaadaraadkaas. Xaaladaada caafimaadna way kasii daraysaa. Marka waxaa laga yaabaa dhakhtarkii inuu jahwareero baaritaano badan iyo waxaas uu kuu diro, adigana aad ka qarisay xaqiiqda. Lacag badan way kaaga baxaysaa, baaritaano badan wuu kuu diraya. xaaladaada caafimaadna way kasii daraysaa. Fadlan haddii aad isticmaashid, u sheeg dhakhtarkaaga si uu kuu caawiyo. Qodobka saddexaad waa qodob aad muhiim u ah oo jahwareer badan uu ka jiro. Marnaba ha ka qarin dhakhtarkaaga haddii uu daawooyinka uu kuu qoray oo aadan si saxan u isticmaalin ama qaar ka mid ah aadan isticmaalin oo ciladiina ay weli ku haysato. Jawaabta markaad u laabato, yani qofka daawada markii loo qoro 7 cisho kadib ama maalma loo qabanayo wuu soo laabanayo. Haddii wax isbedel ah aadan dareemin, daawooyinkana aadan qaadan jirin ama qaar ka mid ah aad ka tagtay, sidee doonaan baa ugu tagtid, waxaa wanaagsan in dhakhtarkaagu siday tahay aad ugu sheegtid. Ma wanaagsan dhakhtarku inaad jahwareerisid. Waxaa laga yaabaa inuu u qabo ama u moodo dhakhtarka daawooyinkan inaad isticmaashid oo daawooyin kale uu kuu qoro amaba xanuuno kale uu baaritaan uu kugu diro. Waxaa isku badisay lacagta isku badisay baaritaano kale uu kuu diraya ilaa daawooyinkii waxba uu kuu tari waayo. Waxaa laga yaabaa in yani baaritaano kale uu kuu diro. Fadlan haddii uu dhakhtarkaaga ku weydiiyo daawooyinka, waa inaad si saxan ugu jawaabtaa oo aad u sheegtaa daawo hebel ma qaadanin, maalin hebel ma qaadanin, saasaa uu isticmaalaya. daawada xitaa haddii aad qaadan weysid daawada, waxaa laga yaabaa daawada markaad qaadaysid in tabartaadu ay yaraato ama dhibaatooyin kale aad ku aragto. waxaas dhan dhakhtarkaaga u sheeg si uu kuu caawiyo mar kale. Qodobka afaraad, marnaba dhakhtarkaaga ha ka qarin qalimada
ama operationada hore aad soo martay kuwooda yaryar iyo kuwooda weynba. haddii uu ku weydiiyo waa inaad si saxan uga sheegtaa qalimadii aad hore usoo martay iyo xilliyada waqtiyada lagu qalay haddii aad xasuusato, maxaa yeelay taas waxay yareynaysaa khatarta mustaqbalka iyo inuu reaction uu sameeyo jirka. qodobka shanaad waa qodob aad muhiim u ah gaar ahaan dumarka. marnaba ha ka qarin dhakhtarkaaga in ay hore ilmo kaaga soo dilmeen ama lagaa soo saaray ilmo bila dhiman ah. waxaa laga yaabaa waqtiyadaas in dhaawac uu kaa soo gaaray minka gudihiisa ama boog uu leeyahay. sidoo kale waxaa laga yaabaa in ay jiraan xanuuno kale. dhakhtarku wuxuu ka tixraacayaa waxyaabaha ku haya ama markaas aad ka cabanayso. tusaale ahaan, hooyadii waxaa laga yaabaa in ilmihii ugu horeeya ay caadi ugu dhashay, wixii ka dambeeyana markay gaadhaan mar walba ay kasoo dhacaan. marka isla markiiba xaaladahaas oo kale waxaa lagu yaqaanaa markay ay kala duwan yihiin dhiigga aan isqaadanin, kala duwanaanshaha dhiigga. tusaale ahaan, hooyadii iyo aabbaha haddii uu jiro kala duwanaanshaha dhiigga RH hadduu kala duwan yahay, xaaladahaas oo kalea lagu yaqaanaa. inta badan ilmaha ugu horeeya si caadi ayay u dhashaan, balse kuwa ka dambeeya o dhan dilan ayay noqdaan. marka dhakhtarku isla markii uu fahmaya in xaaladaas ay jirto, ilaa xaaladaadu ku qiimeynaya, diagnosis-ka uu sameynayo, baaritaano badan ayuu kuu diraya. kolkoo ogaada kadibna daawooyin ayuu kuu qoraya. qodobka lixaad sidoo kale waa qodob aad muhiim u ah. marna ha ka qarin dhakhtarkaaga da'daada, u sheeg da'da saxda ah. waan ogahay dadku intoodu badan ma jeclo in ay da'dooda ay ka run sheegaan, balse xaaladaadu caafimaad ayay muhiim u tahay. waxaa laga yaabaa haweeneydu in ay gaartay xilliga dhalmagoynta ama ay u dhowdahay. xilliyadaas waxay isku arkaysaa calaamadaha. qaar ka mida dumarka waxay isku arkaan calaamado oo ay ka mid yihiin jirka ololo, dhidid habeenkii ah, timahoo gurmo, iyo yacni inay si fudud isaga jabaan. maxaa yeelay calciumtooda ayaa hoos usii yaraanaysa. haddii marka calaamadahaas aad isku aragtid, dhakhtarka baaritaano kale iyo waxyaabo kale inuu u fikiro laga yaabo. qoftaani waxay sheegatay 24, 25 inay jirto, iyadoo 40 iyo meelaha u dhow. marka mar walba waxaa wanaagsan inaad da'daada saxda aad sheegtay inta dhakhaatiirta aad jahwareerin lahayd. aad ayay muhiim u tahay in aad dhakhtarka u sheegtid da'daada saxda ah. qodobka 7 sidoo kale waa qodob aad muhiim u ah. bulshada Soomaaliyeed aad ay ugu badan yihiin oo ay intu badan isugu jahwareeraan dhakhtarka iyo bukaanka. marnaba dhakhtarkaaga ha ka qaran haddii aad leedahay ama aad qabto xanuunada daba dheeraada ama chronic disease sida macaanka iyo dhiigkarka iyo xanuunada la midka ah. waxaa laga yaabaa haddii aad dhakhtarkaaga ka qariso inaad leedahay xanuunkan, in uu kuu qoro daawooyin kicin kara ama kaaga sii dari kara xanuunadii aad qabtay. tusaale ahaan, subax walba waxaad hore u qaadan jirtay kaniiniga dhiigkarka. sababta u qaadan jirta waxay ahayd in normalka lagu hayo uusan kicin pressurekaaga. ama waxaad qaadan jirtay daawada macaanka ama insulinka aad qaadan jirtay. sababta u qaadan jirta waxay tahay in normalkii lagu hayo ee sokortii aysan kicin ama ay degin aad u qaadan jirtay. dhakhtarkii aad u imaaday, waad ka qarisay inaad xanuunadaas aad leedahay. asigana wuxuu kuu qoray daawooyin aan lala qaadan karin daawooyinkaas ama badin kara pressureka. ood markaad guriga kula laabatay aad daawadii aad qaadatay, dhibaatooyin caafimaad oo hor leh aad aragtay. taas qaladkeedu adigaa leh. way adag tahay. laba cilad way jirtaa. dhakhaatiirtu markay ay bukaanka markuu dhakhtarka u tago in baaritaano badan loo diro way diidayaan, xanuunadani way ka qarinayaan. haddaad u sheegto waxaa laga yaabaa in dhakhtarkii uusan baaritaan uu kuu dirin, uu daawooyin uu kuu qoro. laakiin haddaad runta u sheegto, haddaadan ogeyn, waxaad leedahay in xanuunadaas ma isku ogi, ii dir baaritaan, ama asaaba dhakhtarka kuu diri doono baaritaanada. laakiin waa qalad in aad ka qariso inaad leedahay xanuunadaas. gacantaada ayaad isku dilaysaa mararka qaar. bukaanada qaar ama bulshada intooda badan waxay moodaan dhakhaatiirtu inay wax walba ogaan karaan. waxaa laga yaabaa markuu kuu imaado in uu kaa qariyo guud ahaan xanuunadii oo hayo. dabcan wuxuu u fikirayaa, wuxuu doonayaa in aad wax walba uu qarinaya inaad adiga u sheegtid. dhakhtarka ma ogaan karo. xitaa waxaa laga yaabaa calaamadaha qaar in ay qariyaan, ay isku arkaan. dhakhtarku wax walba ma ogaan karo. fadlan talooyinkan qaado, hana ka qarin dhakhtarka waxyaabaha qaar uu ku weydiiyo, gaar ahaan su'aalaha la xiriira caafimaadka. intaasaan kusoo gabagabeynaya. fadlan ha iloobin
inaad muuqaalkayga share garayso oo aad gaarsiiso asxaabta si ay ugu faa'iidaystaan. sidoo kale muuqaalka like saar, page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo gelin. mahadsanid. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.